wafdigan oo horkacaya gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Abduqaadir Sheekh Maxamed Nuur Sidi ayaa waxaa qayb ka ahaa gudoomiyaha magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolka. ujeedka socdaalka ay ku gaareen Janaale ayaa ahaa xarag jar laga xarag jarayo solar laga sameeyay Janaale iyo waliba dhismaha maamulka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxaana goobta ku soo dhaweeyay gudoomiyaha Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiraxmaan Cadaala. waxaana soo booqday gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Abduqaadir Maxamed Nuur Sidi, gudoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafo iyo ku-xigeenada maamulka gobolka iyo ku-xigeenada degmada Marka. waxay u imaadeen safarka waa safar shaqo. waxaan leenahay marka hore gudoomiyaal ku soo dhawaada deegaanka Janaale. waa safarkii ugu horeeyay uu ku imaado mudane Abduqaadir Maxamed Nuur Sidi markii la magacaabay deegaanka Janaale dibna loo xoreeyay. waa markii ugu horeysay uu imaado, waa safarkiisii ugu horeysay. waa wuxuu xirag jarayaa mashruuci solar light-ka iyo mashruuci degmada lagu dhisayay, xarunta maamulka lagu dhisayay. sidoo kale gudoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Waafo oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda uu leedahay dhismaha iyo waliba solarada laga hirgeliyay Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose in wax weyn u tar karto bulshada qaybadeeda kala duwan. sidoo kale magaaladan gudoomiyaha waxa soo gaaray solar ayaa soo gaaray. dawladdu waxay noo keentay solar ayay noo keentay, magaaladu waa la ifiyay. sidoo kale waxay noo dhistay dawladda xarun uu maamulka ku shaqeeyo ayay noo keentay. ayadana insha Allah taala waa tagi doonaa, ayadana waa ka hadli doonaa. mudan gudoomiye soo dhawow. waxaana si wada jir ah xarag jarkan u sameeyay gudoomiyaha Janaale, gudoomiyaha degmada Marka iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. haddaba waa maxay ahmiyadda uu leedahay dhismaha iyo waliba soolada laga hirgeliyay Janaale? waa kuwan qaar ka mid ah bulshada. mashruucan wax weyn buu ku bedelay. ma haysanin degmo, ma haysanin oo noo dhisan oo maamul isugu yimaado, ma haysanin. hadda waxaan dareemaynaa in degmadii naloo dhisay si nidaamsan ay tahay. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay marka ugu horeyso ciddii oo noo soo waabishay in naloo dhiso degmadan. maxad weyn ayaan u celinaynaa marka ugu horeyso. noloshan wuxuu ka bedelay waxyaabo badan oo dhanka maamulka ah oo markii hore maanan haysanin meel aan dadka kula hadalno ama aan ku sameeyno ama ay waxyaabo badan ay ku soo kada sameystaan. laakiin hadda waan haysanaa, waan helnay maadaama oo wili aysan noo kaamileen. ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Abduqaadir Sheekh Maxamed Nuur Sidi. waxaan sharafeynaa dawladda koonfur galbeed inay hirgelisay mashruucan soolarada oo laga hirgeliyay 50 xabo oo solar ah oo magaalada ifiya oo nabadgelyada ka qayb qaata oo shacabka isdhexgalka bulshada ka qayb qaata. meelihii dhalinyarada ku caweyn lahaayeen iyo gabdhaha ku caweyn lahaayeen, odayaasha ku caweyn lahaayeen, suuqa dhexdiisa, xaafadaha dhexdooda in soolaradaas aan ka hirgelino sharaf weyn ay noo tahay. mashruucii aan soo dirnay inuu hirgeliyo maanta inaan xarig ka jarnana sharaf weyn ay noo tahay haddaan nahay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose.